xiisada ka dhexaaloosan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa cirka isku sii shareeray ka gadaal markii siyaabooyin kala duwan dhinacyadu ay fardhiimo kala duwan ay hawada isugu marsiinayaan. sidoo kale SSC Qaatuma ayaa iyaduna garab kale oo iyaduna ku dheehan sidoo kale khilaafka ka dhexoogan maamulka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. soo dhawada waday haday tahay markaaga kugu horeysay ee aad halkan soo booqato subscribe noo saar noo like gare muuqaalka waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. anu si aan baqaado dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in guud ahaanba duulaan ay ku tahay maamulka Puntland, waxaana sidoo kale maamulkaasi uu sheegay in tallaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya aynan ahayn kuwa aanan la mahdin doonin. dhaqdhaqaaqyadan ayaa siyaabooyin kala duwan maalmihii ugu dambeeyay uga dhaxaloosnaa dhinacyadu ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad u cadaysay mowqifkeeda ku aadan dhismaha saddexda gobol ee SSC Qaatumo, waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi siyaabooyin kala duwan ay Puntland uga carootay. haddaba warar hoose oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu tagayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya. halkaasi sidoo kale waxaa tagaya madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro. waxaa la tilmaamayaa labadooda in halkaasi ay ku jaangoynayaan suurtagalnimada ay ku qaadayaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo laba geesooda oo lagu wajahayo SSC Qaatumo. tallaabadan waxay u muuqanaysaa inay tahay tallaabo culus oo ay markaasi labada dhinac qorsheynayaan. magaalada Addis Ababa ayaana la tilmaamayaa inay ku madla yihiin labada madaxweyne ee Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland. qorshaha ugu muhiimsanna waxa uu yahay weerar laba geesooda oo lagu qaadayo SSC Qaatumo. mid waxa uu ka imanayaa dhinaca og, kan kalena waxa uu ka imanayaa dhinaca magaalada Dhaxar. sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in deegaanka Shaxda isaguna sidoo kale ciidamo u geynayo maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si markaasi loo soo afjaro SSC Qaatumo sida qorshuhu uu yahay, isla markaana ay daneynayaan madaxweynayaasha maamulada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland. waxaa la tilmaamayaa tallaabadan inay culus tahay, isla markaana dhinacyadu siyaabooyin kala duwan ay uga shaqeynayaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay hakiso dhaqdhaqaaq waliba uu markaasi lagu aloosayo dhibaatooyin xoogan oo ka dhasha gobolka, waxaana la tilmaamayaa in ay qaadayso tallaabo kale iyo xiisado kale oo laga beerayo gudaha magaalada Boosaaso ee xarun ganacsiyeedka maamulka Puntland. tallaabadan waxaa la tilmaamayaa dowladdu inay ku hakinayso dhaqdhaqaaqa ka imanaya dhinaca Puntland, waxaana la tilmaamayaa in sidoo kale ay qorsheynayso in ciidamada ay geyso gobolka Sanaag, halkaas oo iyaduna la qorsheynayo in lagu hakiyo dhaqdhaqaaqyada dhinaca Somaliland, kuwaasi oo ay dowladdu si weyn u danaynayso. maalmihii ugu dambeeyayna siyaabooyin kala duwan ay uga shaqeynaysay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. tallaabooyinkan ayaa u muuqanaya in xiisada ka dhexaaloosan Puntland, Somaliland oo isku dhinacayo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka SSC Qaatumo ay noqonaysa mid cirka isku sii shareeri karta haddii ay qaadaan tallaabooyin ka baxsan kuwa hadda ay qaadayaan dhinacyadu. waxayse u muuqanaysaa in halis xoogani ay soo food saarayso mar kale SSC Qaatumo, dowladuna ay qorsheynaysa inay qaado tallaabooyin ka baxsan kuwa ay hadda qaadayaan dhinacyadu. waxay u muuqanaysaa xiisadu inay cirka isku sii shareeri karto. Puntland waxa ay qorsheynaysaa iyadu in la hakiyo dhammaanba guud ahaanba dhismaha SSC Qaatumo, isla markaana laga tala baxo. Somalilandna sidaasi lamida ayay iyaduna qorsheynaysaa. waxa ay doonayaan mid waliba in la hakiyo si markaasi guud ahaanba ay u kala haystaan labada dhinacba maamulada, isla markaana ay u qaybsadaan SSC Qaatumo. waxaana la tilmaamayaa in bulshada deegaanku ay si weyn tallaabadaasi u diidan tahay, isla markaana iyagu ay qaadayaan tallaabooyin ka baxsan kuwa ay doonayaan dhinacyadu. waxaa la tilmaamayaa in isimada halkaasi ku sugan weli shirar kala duwan uu u soconayo, iyadoo shirkii weyna halkaasi uu ka jiro. waxaana la tilmaamayaa in dhismaha maamulka SSC Qaatumo meel wanaagsan uu marayo. Maaqir State ayaana sidoo kale ku biiraya, isla markaana waxa uu noqonayaa maamul weyn oo dhinacyadu ay u dhan yihiin. SSC Qaatumo, Sool, Sanaag, Cayn ayaa sidoo kale ku midaysan, waxaana maangala in lagu soo daro Highland oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso, walow maamulka Saciid Cabdullaahi Dani uu tallaabadaasi si weyn u diidan yahay, isla markaana weliba uu diidan yahay in
sool lagu daro. dhaqdhaqaaqyada siyaabooyin kala duwan ayay u qeybayeen dhinacyadu, waxaana la tilmaamayaa in maamulka Somaliland qudhiisu uusan yaraysanayn islamarkaana uu qaadayo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu abaabulayo ciidamada deegaanka islamarkaana looga horkeenayo maamulka SSC Khaatumo. waxaase la tilmaamayaa in tallaabooyinkan ay culus yihiin, dhinacyaduna ay qaadayaan qorshayaal hor leh kuwaasi oo guud ahaanba meesha ka saari kara tallaabo weliba oo ay markaasi dowladda federaalka ku doonaysa inay ku dhisto maamul ka madax bannaan labada maamul goboleed ee Somaliland iyo sidoo kale Puntland, islamarkaana SSC Khaatumo oo ay ku midaynayso 4 gobol oo ka mid ah kuwa halkaasi ku yaala. tallaabadan ayaana la tilmaamayaa in si weyn dowladdu ay uga shaqaynaysay. wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamayaa in iyadu ay qorsheynayso in ciidamada ay geyso gobolka Sanaag, halkaasi oo la tilmaamayo in dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo deegaanka iyo ciidamada Puntland ay ka taagnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. dhanka kalena Somaliland ayaa iyaduna waxaa la tilmaamayaa in ciidamo tirabeelahi ay gobolkaasi Sool soo dhoobtay, kuwaasi oo guud ahaanba ay ku doonaysa inay ku hakiso dhaqdhaqaaqa ka imanaya dhinacayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Saciid Cabdullaahi Dani. lama soo ogaa dhaqdhaqaaqyadan xoogan iyo halka ay saldhigan doonaan.